waa taxanaha qaybtii labaad ee shaasha iyo sheekadii arooska Jowhar. waxay wadaan boorsooyin ay ku jiraan dhar, shoobin iyo dahab loogu talagalay gabadha aroosada ah, waxaana sida ehelada wiilka gabadha guursanaya. sida caadiga ah waxaa boorsada laga soo qaadaa guriga wiilka, waxaana ay aqrinayaan erayo duco ah ilaa ay ka gaaraan guriga gabadha oo ah halka lagu furi doono boorsooyinka ay sidaan. muddo ayaa lagu kor ciyaarayaa boorsooyinka dushooda, waxaana la qaadi doonaa heeso loogu talagalay ciyaaraha saddexoyda iyo buraanburka oo haweenka Jowhar ay aad u ciyaaraan xilli arooseedka. waxaa la gudagalay in la furo boorsooyinka si loo tusiyo martida arooska waxa ku jira gudaha boorsada, waxaana mid u sharaxaysa mid ka mid ah ehelada arooska. dharkii iyo shoobinkii ku jira boorsooyinka waxaa la tusiyay martida. dabcan kama maqna goobta in lagu soo bandhigayo dahabkii gabadha loogu talagalay. maanta waxaa taaganahay maalintii boorsada wiilka cidiisa keenayeen oo loo keenayay gabadha cideeda. maasha Allah tabaarakallah, way ka soo baxsadeen waxaa ku jiro wixii la rabiyo dhan. dharka gabadha dharka maasha Allah shoobinkeeda wax ka maqan mal maasha Allah tabaarakallah oo loo dheeli sidixay maasha Allah tabaarakallah. arooska sidan oo kale maanta oo kale maxaa loo yaqaanaa marka? maalin boorsakeen marka boorsadaas waxaa loo keenaa cidda gabadha ka dhalatay, waxaana keenaa cidda gabadha oo raban cidda wiilka keena. boorsada waxyaabaha ku jira maxaa kamid ah? dhar taban joogo sad waxaa ku jiro suwaaci xariir, waxaa ku jiro bahalkii dhahay isheeg oo lagu labisanayo gabadha aroosada loo gelinayo, shoobinyaala ku jiro, gabsaara ku jiro, madax saara ku jiro. maasha Allah wax ka maqan male. dahaba ku jiro, faraantiya ku jiro, dhaga ku jiro. hadallo waxaa jira aad adeegsanayseen oo waa goysay iyo luuqadii gashid ma goynayso, bal sharaxaad dhigaysi kuwaas. aan ku sheegay shaashad gabarta hadee banaanka ninka ku shukaansato banaanka lagu taataabto yaa wax siinayo. hadee gabarta edab isku yeeshay laakiin oo gurigeeda ay ku shukaansato wax way goynaysaa. midaas waa mid lagu sheegay. marka yahay waxaa jooga meesha dad badan haweenka ka soo qayb galaya aan arkay lacagay dhiibayeen, qaybtood waa ciyaarayeen. maxaa loola jeedaa waxaas? waa la faalina waana farxad waaye. waa dirsaalihi jiiraankan ee xaq nugu lahay way faraxsan yihiin, waxay ku faraxsan yihiin gabadhaas la aroosaay.
oo la faalinayo ayaala ku jiro eedooyina ku jiro maasha Allah waa la wada buuxay aan hadda kula hadlayo aabaydeeda waan ku faraxsanahay dareenkaaga maanta sidee ah maasha Allah dareenkayga aad u faraxsanahay man la soo koobi karo dhaqanka boorsakeenka waxa uu ka mid yahay tiirarka dhaqan ee aroosyada Jowhar ka dhaca waxaana la isku qiimeeyaa waxa ku jira boorsada iyada oo gabarba gabadha ay ka sareyso ay ka boorso badnaanayso ama ka hadiyada badnaanayso boorsakeenka waa maalin ka madax bannaan maalinta galbinta lamaanaha iscalmaday waxaana loo sameeyaa xaflad gaar ah oo ay isugu yimaadaan haween badan kuwaasi oo ku tartamaya qudhooda bixinta hadiyada loo hibeynayo laashinka goobta ku sugan عبد الشكور شاشة CNN جوهر.